kulanti wanaagsan daawade 6 caruur ah ayaa kubadaha u soo qabta garoomada kubadda cagta ee Soomaaliya 3 kamid ah caruurtaasi waa agoon waxay u imaadaan garoomada sidii ay dadka gurigooda ugu shidi lahaayeen bal suuray adigoo na daawanaya 2 sano ku dhawaad caruurtani wax la cagaamaysan qaadan si fariya ay ku shaqeynayeen subax waliba waxa laga yaabaa inay guryahooda ka soo kacaan iyagoo waan soo quraacan galabtiina ay ku noqdaan iyaga oo jeeb maran garoonkana biyo caadi ah ka soo cabay xaqa caruurtaasi agoonta ay Soomaalihan mid caloosha u istaagaya kubii cunay maxaan indhaha uga qarsanaynaa xaqiiqda iskaga inna tireena wax runta ay yaalo waad ka qayb qaadan karaysaa dardargelinta arintan xaqooda waad u raadin karaysaa caruurta aan fariintan ka soo gudbinayno waan wareysay oo waan la hadlay haddii macquul noqoto muuqaaladooda waan soo gudbin doonaa waxaad uga qayb qaadan kartaa adigoo muuqaalkan like inoo saara sii share gareeyo saaxiib haddaad awood u leedahay ama aqoon u leedahay waad ka mashin gareyn kartaa dadkay qusayso arimahan haddii aad fikir inoogu soo gudbinaysa qaybta hoose araahda waynu kaaga mahad celinaynaa soo dhawow daawade mar kale kubadda cagta waa xirfadii iyo mihnada ugu sareysay hadda waqtiga loo lunsado lagu raaxaysto dhaqaale tiro badanna laga abuuro dadku intooda tirada badan sababa ayaa ku kalifay in kubadda cagta ay shaqo ka raadsadaan ciyaartoyda iyo macallimiinta garoonka ku soo bandhiga falsafado iyo kubadda qurux badan ayaa ah kuwa nooleeya isboortiga laakiin taageerayaasha referiyada iyo ciyaalka yaryar ee kubadaha soo qabta marka dhammaan la isku wada daro waxa la isku yiraahdaa familka kubadda cagta kaalin tiro badan oo aad u weyn ayay ka qaataan caruurta kubadaha banaanka soo qabta ciyaarta iyo habsan u socodkeeda garoonka iyo qurxintiisa iyo shaqo fudeedka dhanka kubadda cagta iyo sidii ciyaartoyda u ciyaari lahaayeen caruurtan qaarkood rajada iyo mustaqbalka ay ka leeyihiin kubadda cagta ayaa ku kalifay in shaqadan ay qabtaan qaarkood guryahooda oo dabkooda uu dansan yahay ayaa ku kalifa in ay risaq ka soo raadiyaan goobtaasi qaarkoodna caruurnimada ayaa qaada oo waqtiga ay iskaga luusadaan goobtaasi kuwa hibada iyo mustaqbalka leh mar walba waa ay la jihaadaan sidii hamigoodii mustaqbalkooda ay u rumayn lahaayeen laakiin kuwa gurigooda dabku ka dansan yahay laakiin u baahan inay quud halkaasi ka helaan ayaa ah kuwa ay la kulmaan imtixaanka ugu badan ee nolosha waxay la kulmaan mararka qaar caqabadooyin aad u tiro badan waxay la kulmaan mararka qaar dhibaatooyin haba ahaato inay waayaan qarashaadkii ay u baahnayeen ama waxyaabo kale Soomaaliya oo ah kubadda cagta wadan hadda uu aad u soo ifbaxayo ciyaaraheeda caruurtaasi garoomadu waa ay ku sugan yihiin iyaguna aad ayayna isboortiga Soomaaliya uga soo muuqdaan ugana qayb qaataan waa uu ku taale aad u weyn caruurtaasi waqtigaasi adag qayb qaadanaya ciyaaraha Soomaaliya oo aynu ognahay qoraxda Soomaaliya siday u kulushahay iyo waqtiga la ciyaaro in haddana ay waayaan dhaqaalahoodii ilaa 6 caruur ah ayaa ka soo muuqda mar walba garoonka kubadda cagta lagu ciyaaray ee Expanaadir Engineer Yariso Stadium oo Abdulcasiis ku yaala caruurtaasi waxay 6dooda maalintii qaataan calaa qof $10 waa markay ciyaar jirtay itobada duhurnimo ayay soo galaan garoonka oo ay soo xaadiraan waxay garoonka ka baxaan maqribaadkii guryahooda ayayna u noqdaan haddii aan bal daawada ku sheega ka waran 2 sano oo xiriira caruurtaasi ku shilin maysan qaadanin 3 kamid ah caruurtaasi waa agoomo qaarkood oo aan la xiriiray aad ayaan uga xumaaday xaqiiqdii waxay iiga sheekeeyeen codadkooda iyo tawiiradooda oo aan u adeegsan karin muuqaalkan darteed anigoo u cabsanaya xaaladooda caafimaad ama shaqadooda oo ay waayaan dartood haddana ficilka lagu sameeyay ayaa ah mid qof walba oo bini'aadam ah damiir leh uu aad u gubayo sidee 2 sano caruur halkan u soo shaqo tagtay una baahan dhaqaalihii ay gurigooda dabka ugu shidi lahaayeen ay u weyn kariyaan lacagahoodii maamulka gobolka Banaadir qaarkood waliba waaxda warfaafintu waynu la xiriirnay laakiin maysan naga aqbalin inaynu si toos ah u la hadalno saynu u weydiino arimahan iyo xaqiiqdooda laakiin sidoo kale caruurtan badankoodu waxay si toos ah inoogu xaqiijiyeen in 2 sano ee ay iyagu lacagta helin uu dhacay sidoo kale tartankii degmooyinkii 2020 bal adiga suuray saaxiib daawade sidee ayuu noloshooda noqon karayaa caruurtan harkaasi oo kale ku nool waynu ognahay caruurtaasi oo kale sanad walba waxa la soo dhiibaa dhar labis ah oo iyaga loogu talagalay waa dariiska kubadda cagta
dhowaan xafiiska xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waxa laga daabgureeyay oo laga daldashay alaab xilli hore loo soo dhiibay kooxaha dalkeena Soomaaliya una soo dhiibeen hay'adaha isboortiga laakiin waa 4 sano ka hor alaabtan xilligii la soo dhiibay iyagoo dheedkoodii uu dhacay dadkii loogu talagalay ay ka maarmeen ayay maalin hore si awood ah xitaa dadana xaq u lahayn ay u qaateen agabkaasi waxa kamid ahaa sidoo kale labis loogu talagalay caruurtaasi 6 ayaan ka sheekeynayo waxa hadda eedeynta ugu badan loo jeedinayo waa maamulka gobolka Banaadir qaybtiisa ciyaaraha oo arintan aad uga jiiftay tartanka degmooyinka ayaa soo socda waa sababta muuqaalkan aanu duubeyno oo arintan aan uga hadlayno xilligan la taagan yahay daawade tartankan mar kale ma inuu u baahnin inuu noqdo sidii kii hore oo caruurtan tartankan uu u bilowdo iyagoo aan wax dhaqaale helin una dhamaaday iyagoo sidoodii aan wax bis ka bedelin dhaqaale tiro badan ayaa ku baxa tartanka sanad walba oo la ciyaarayo muuqaalo kale oo tiro badan ayaynu ka sameyn doonaa saaxiib tartanka degmooyinka qarashaadka ka soo gala maamulka gobolka Banaadir ee ciyaaraha sidoo kale waxaynu muuqaal ka sameyn doonaa tartanka maamul goboleedka dhaqaalaha ka soo gala shirkadaha fangareeya iyo hay'adaha qaybta ka qaata laakiin ciwaankan inuu ka hadlayna hadda waxay tahay caruurtan qaybtooda agoonta ay tahay bal ilaahan kugu dhaariyay sidee ayaa dareenkaydu noqon karaa ruux agoon qof ah lacagtiisa ama xaqiisii iyo dhididkiisii isku dayaya inuu cuno ma suureen karayo aniga sida uu noqon doono camalkiisa midka adduunyo iyo midka aakhiraba waa kuwa nabiga sallallahu alayhi wasallam yiri xaqooda hal iska ilaaliyo waaba kaaga sii dalanay wali waa caruur waa wali dad u baahan in garab la istaago oo la kaalmeeyo qaarkood sidaynu ognahayba dadka goobtaasi ku sugan ee inta badan kubadaha soo qabtay caruurta ahi waa dad noloshoodu ay ka hooseyso dabaqada hoose jooga dabaqooyinka ugu hooseeya ee nolosha xitaa hadduu ruuxu ahaan lahaa ruux noloshiisa kaafin karaya maareen karaya waxbay ahaan lahayd daawade fariintan waxaan ugu talagalay saaxiib daawade inaad adiguna ka dhigdhigsid aniguna aan dareenkayga ku soo gudbiyo ee ku saabsan xaqa caruurtaasi ay leeyihiin qaabka loo duufsado iyo waxa hadirtaan tilaabo ahaan hor yaalla ee aynu qaadi karno tilaabada waa inaan si toos ah ula hadalno maamulka ciyaaraha ee gobolka Banaadir maamulka xiriirka ciyaaraha Soomaaliya waa inaynu si dadban ugu sheegno waxa caruurtani u baahan yihiin waa inaynu si toos ah warbaahinta ugu marino adigu qayb ayaad ka qaadan karaysaa dardaarankan qayb ayaad ka qaadan karaysaa dhiirigelintan qayb ayaad ka qaadan karaysaa dadaalkan saaxiib waa haddii ay daacad ka tahay waxaad uga qayb qaadan kartaa adigoo sii sheergareeya muuqaalkeena adiga oo commentigaaga si toos ah inoogu dhiirigeliya iyagana fariin ugu dira adigoo muuqaalka like inoo saara adiga oo ka mashin gareeya sidoo kale saaxiibada arrimahan ay quseeyaan waad maasantahay daawade